السلام عليكم. السلام عليكم. سو دوااد إن شاء الله. سو دوااد عبد الثاني هذا سو دوااد روحان عوا كهال الدوناس كم مغطى وانكا برنامجك أول waxaan u magac bixinay xukuumadda oo loo bixiyay xukuumadda xil iyo xididnimo. maanta ama weeganba waxay qabanqaabinayeen sidoo kale dabaaldega xisbiga dib u dhaca shacabka Soomaalida Itoobiya ama xisbiga dilalka shacabka Soomaalida Itoobiya. xukuumaddii xil iyo xididnimo waxay u dabaaldegaysaa xisbiga dib u dhaca Soomaalida Itoobiya. insha allah waa bilaaban doonaa dulmudiid marnaba waxa weeyaan dulmudiid markasta wuxuu diyaar u yahay inuu farta ku fiiqo ama ay farta ku fiiqaan oo tilmaamaan foolxumada iyo dhibaatada iyo dib u dhaca iyo beenta ay wadaan qolyahan xisbigooda iyo xukuumadooda baan u bixinay xil iyo xididnimo. xisbigan aan u bixinay xisbiga dib u dhaca shacabka Soomaalida Itoobiya. sidaasaa loo soo gaabshay haddaad aragteen. yow Sara Ali Maxamed Xuseen aad baan idin soo dhaweynayaa. laakiin xoogahay waxay programka iga yar khaldaya markaan qofka dawcana soo qabto waxaa iga go-ayaa live-ka iga go-aya marka iga raalli ahaada bal intaan xagaagsanaayo insha allah. live-ka ayaan ku cusbahay marka aad professional ugu may qaabka maartay oo xiriiriyo, laakiin insha allah dee training baa socda hadii Ilaahay yiraahdo waa guuleysan doonaa hadii Rabbi idmo. wax lagu dhashaa ma jiro. xisbiga dib u dhaca Soomaalida Itoobiya yani waa dabaaldegii xisbiga dib u dhaca Soomaalida shacabka Soomaalida Itoobiya ayay maantay u dabaaldegayeen xukuumaddii xil iyo xididnimo. maxaa loo dabaaldegaa? waqtiga waa inaynu isweydiinaa maxaan u dabaaldegnaa? maxaa loo dabaaldegaa? maxaa la xusaa? maxaa la soo dhaweeyaa? su-aasha in hortaalla oo ay mudan tahay in la isweydiiyaa waxa weeye maxaanu u dabaaldegnaa ama soo dhaweynaa ama dee inaga mudan inaanu u dabaaldegno. waxaa inaga mudan inaanu u dabaaldegno xisbiga iyo xukuumadda xil iyo xididnimo ee xabsiga iyo hagardaamada iyo dilka iyo kufsiga iyo cayda. ma in hooyooyinkeen la caayaan u dabaaldegnaa ama gabdhahanagii sharafta lahaa in la aflagaadeeyo miyaanu u dabaaldegnaa? oo waxaanu u dabaaldegnaa xisbiga qabyaalada iyo qalalaasa? oo waxaanu u dabaaldegnaa xisbiga musuq maasuqa? oo waxaanu u dabaaldegnaa xisbiga ku dhisan sidiisuba background iyo waxyaala la isu geegeeyey? sida aan channelkayga soo geliyeyba YouTube-ka doolo
waxaa jirtay wadahadal dhex maray madaxa barnaamijyada Universal iyo madaxa dumar cayga ee ESTV. intiina dhageysatay yani labadan nin markay wada hadlayaan waad arkaysaa waxaan dadka la tusayo ama loo soo gudbinayo in ay yihiin wax sidii maaragtay kambaniyadii oo kale advertising xayeysiis uu sheegaya afkiisu ka sheegaya janalkayga haddaad dad gashaan waad arki kartaa. sidoo kale bal ka waran nin weyn oo mas-uula oo ku haya ka waran see ma codkayga loo arkay si fiican ma uga soo shaqeeyay wax noocaas yani wuxuuba ku mashquulsan yahay wax masala basiida. maxamed soo dhowow saaxib aad baan ku salaamaya. walaalayaal in xisbiya la yeesho, in dimuqraadiyad loo baxo, in wax la doorto iyo in xisbi wax noo qabto aan u dabaaldegno ma diidanin. cadaawad hadda xisbiga nagala dhaxay soo gaarayna. aad baan ku salaamaya Caydiid Cabdi soo dhowow. cadaawad uusan samaysan oon hadda u qabnaana ma jiro. xisbigu waa kii aan xalay ka sheekeynayay isaga iyo xukuumaddiisa xil iyo xiditinimo ee musuqa iyo qabyaalada iyo nin jeclaysiga iyo xigtada iyo xigaalada ku dhisan. waa xisbigii baday deegaamadeena in yacni horumar laablakaca yani dowlad markaad maqashid ama xisbi wax hogaaminayaa wuxuu leeyahay qorshe u degsan nidaam xisbi. marka lagu leeyahay waxa weeyaan xisbigani markuu soo galayo doorashada ayuu wuxuu ku soo galaa nidaam u degsan oo ah saa iyo saa iyo saa iyo waxa iyo waxa iyo waxa ayaan qabanaa iyo sidoo kale program leh long term iyo short term. markuu bulshada u soo bandhigo ayay bulshadu aqbashaa ama diidaa. haddii la aqbalo xisbigaasi wuxuu ku shaqeeyaa wixii ay ku aqbaleen shacabku, wuxuuna ugu shaqeeyaa siday u kala horeeyeen. sidaan wada ogsoonahay deegaanka Soomaalida yani xisbi markaad maqashid waxaad xasuusanaysaa multiparties ama xisbiya badan. balaan isweydiinay xisbiga dib u dhaca shacabka Soomaalida Ethiopia yaa la tartama weli ma aragteen xisbi kale oo deegaankaayo ololeysanaya ama tartan ku jira ama ya ila xisbi wuxuu micna yeeshaa, wuxuu micna yeelan karaa xisbigu oo meaningful noqon karaa markii la helo xisbi kale oo tartamaya. walaalayaal waxaa dhacda xilliga doorashada ayaa waxay sameeyaan xisbiya yaryar oo gacan ku rimisa oo ayagu ka dambeeyaan oo ay dhahaan way nala tartameen camal oo kale. laakiin caqligooda xitaa kuma dar. wacalaykum asalaam wadani soo dhow. xisbiya kale oo gacan ku rimisa oo iyagu ay sameeyaan ayay xilliga doorashada sameeyaan. laakiin xisbiga dib u dhacaya dilalka shacabka Soomaalida Ethiopia xarigaya xaqdiga iyo xaqdarada Soomaalida Ethiopia iyo hogaaminta hogaamisa ismaysan weydiin war wax dadka ka gadmi kara sameeyo
at least xisbiyadan gacan ku rimiska ee aad samaysateen idinku bal qof iyo laba doorashada ha uga soo baxaan oo doorashada ha soo galaan oo hala dhaho xisbi waxay ka soo baxeen mucaarada intuusan talada la wareegin ama uusan hogaaminta sare ee xisbiga uusan noqon cabdi maxamed cumar يرى هذا إرب يعني وأنا يعني كابولو تزقرانيا إن حتى كلمة يظهر استعمال عبد إلي سنة حالة يدين شيء غيبة أنقو هذا الكيجا يضاد يضوى وحد أي ماها أفلقات ماها ننقرس ماها si cad ayaan waxaan u soo dhigaynaa anagoo qofka title-kiisa iyo magaciisa sheegayna dhibkiisa iyo dhibaatadiisa iyo dib u dhac oo hayo sida la aligeed taageerayaasha dulmudiid hamoodinina markaan magaciisa ku dhawaaqo sax oo dhameystiran inaan u jilcay waxa weeyaan markii xukuumadda xiliga xidhiidhnimo hadda deegaanka ka talisa ay hoggaanka talada deegaanka iyo xisbigaba la wareegtay ka hor maxaa jiray horta waa yani su-aal muhiima in la isweydiiyo qabadka xisbiga ee maanta loo dabaaldegayo ayaan rabaa inaan idin dulmara wuxuu yahay waxqabadka dhabta ahi kay iyagu sheegayaan maahan waxaa jiray inta santalada nimankan ay la wareegeen qowleysatada ee wada qaadiraysan waan kaa qaaday abshir saarab walaal soo dhow xisbigan inta santalada la wareegeen waxaa jirtay markii doorashada la gaaro horta waxay ka sinaayeen ma jirin xisbi kale oo tartana la soo gala kuwa gacan ku rimiska ma ahan laakiin waxaa jiray xubno isku sharixi jiray waxa la oran jiray gilli si madax banaan oo waliba anigu hadda deegaamada aan ka soo jeedo ama gobolka doolo khaasatan degmooyinka bariga xildhibaanada ka soo baxaa waliba xildhibaanada federaalka badanaa waxay ku soo bixi jireen gilli yani si madax banaan ayay isu sharixi jireen ayagoon xisbina ahayn wayna soo bixi jireen xildhibaanadaas waxay ka turjumi jireen rabitaanka dhabta ee shacabka mahadsaned cabdifataba soo dhow walaal xildhibaanadaas gilliga kusoo baxa oo uu u dambeeyey taamkiisi koobaad kii labaad maaqa wuxuu kusoo baxay u dambeeyey jamaal deriye khaliif oo markii koobaad oo soo geliyay baarlamaanka gilli kusoo baxay si madax badan oo soo baxay ayadoo qofka xisbigu wato dadka deegaankaasi laga tuuri jireen taasi marka waxay ahayd yani matalaad dhabay ahayd matalaad dhaba ayay ahayd oo hadda xilligii uu soo baxayay xildhibaan jamaal deriye khaliif oo kale waxaa la soo tartamay xubin in badan kursiga ku fadhiyo 10 sano ma aqaan miyuu ku fadhiyay adiftaaxu xagga soo qabashada live-kan iyo waxa iga haysta xogahay cilad yar baa iga haysto markaan qofka dawaa inaan soo qabto qadka iga go-aya I don't know Cabdinuur aad iyo aad cadaaladu ha sarreyso marka waxaan ka soo waday horta xisbigan xitaa xisbi uguma dhawaaqi karno aniga waxaba ila qumama inaan ugu yeerno xaqdarrada iyo dib u dhaca shacabka Soomaalida Itoobiya soo ayagu may qorin SH saasoo may qorin inaan anagu u qaadano meesha X-ka ka dhigeen ama xaada ka dhigeen xaqdarrada iyo dib u dhaca shacabka Soomaalida Itoobiya hadda kadib sidaa u qora sida aan xukuumadda xil iyo xidhiidhnimo uga dhignay
isagana waana ugu magac bixinaa xaqdarrada iyo dib u dhaca shacabka Soomaalida Ethiopia. xisbiga horumarka siyaasa waxaa u jiray dad ku yimaada matalaad shacab oo dhab ah ayaa jiray. Alright, markii uu xisbigani raggii ka horeeyay nimankan hadda talada haya ay nimankii kala wareegeen, waxaa meesha ka baxay wixii la oran jiray gilli ama si madax banaan in la soo sharaxo ayaa meesha ka baxday. waxay dhaheen waxaan daadajinaynaa nidaamka xisbiga. xilligaas anigu maxamed ahaan raggii daadajinta lagu bilaabay degmooyinka ka shaqagala ayaan ahaa. waxyaalaha ugu badan ee aan aadka isaga hornimid waxaa kamid ahaa qolyihii aan la shaqeynayay oo uu gudoomiyaha gobolka noo ahaa Guuleed Cali Gari. degmada aan joogayna oo nin la yiraahdo Faroole uu ka ahaa gudoomiyaha xisbiga. waxyaalaha aan ka shaqeynayna waxaa kamid ahaa gudoomiyaha xisbiga oo inta xafiiska kugu yimaada ku dhahaya ken qaranka xisbiga. haba kaa qaadee la xisaabtan ma jira oo rasiid ma loo jaraya. xisbigu wuxuu ka mid noqday kambaniyadii aan xalay idiin sheegayay ee enterprise-yada ahaa, ee enterprise-ka qaadka iyo enterprise-ka sharaabka iyo enterprise-ka raashinka. xisbiga lagu bilaabay enterprise-ka fiiriya, xisbiga ayaa lagu bilaabay enterprise-ka iyadoo lagu soo hoos dhuntay wax la yiraahdo qaaraan xisbi. oo inta shacabkii tuulooyinka loogu tago iyo santarada ayaa waxaa la oran jiray xubno xisbigaasaan ku tihiin keena waxaad haysaan. waan xasuustaa yacnaha every tuulo weekii ama labadii weekba gudoomiyihii xisbiga xilligaas degmada Galaadi bacmadow lacagu ka soo qaadi jira. waagaas doola bari ama xitaa gobolka doola dhammaantiisba ilaa qabri daahir lacagta shilin Soomaaliga ayaa ka shaqeynaysa. yacni wuxuu gaaray gudoomiyihii xilligaas xisbiga degmada Galaadi inuusan xitaa gaariyaa baabuurka dowladda qaadanin baabuur u kiraysto inuu lacagta ka soo aruuriyo shacabka. qofkii diidana wuxuu ahaa horumar diid. horta halkaas waxaa ka bilowday nidaamka enterprise-yada hadda loo bedelay iyo in xisbigii loo bedelay tukaan. dadkii ka hor yimid baan kamid ahaa oo yiri wareedhahay anigu waxaan rasiid lahayn bixin maayo. mideeda kale dee haddii xitaa la bixinaya qaaraan xisbi, dadku waa labo, waa members xisbiga iyo dad member sugayaal ah ama taageerayaal guud ah. qaranka waxaa lagu leeyahay ku yiri memberska ee laguma laha dadka shacabka. waa meelihii aan isaga dhacnay kamid ahay Guuleedii raggiis. lacagtaa la soo xareeyo oo gudoomiyaha gobol degmadu soo xareeyo live anagoo u taagan ayaa wareer loo rareeyo dadwana lagu cabeeyo. waxaa loo geyn jiray maamulka xilliga ee gobolka Wareer oo u horeeyo ama aanan anigu hadda oran karin ragga kale waa kula jeena ka aan hubaa oo gabdho xitaa inta yimaadaan sidii maartay lacag xawaalad laga qaadayo oo kale bay ka qaadi jireen lacagta ama galdoga baa laga diri jiray.
ayadoo qofka guulad ha lagu hagaajiyo walibana ma doonayo inaan halkan ka sheego waxaa jiray company gaalkacyo ka dhisnaa ayaa lagu diri jiray lacagtaas laakiin ma doonayo companygaasna hadda meeshaan ka magacaabo sababa jira awgood oo waxa weeyaan dee waana business qof bini aadan ay leeyahay oo ka baxsan xuduudda sidoo kale nin siyaasi maaha laakiinse xubinkii xilligaas gaalkacyo mas-uulka uga ahaa ayaa dhaqan xumadaas ku kacayay xubinkaasay ahaayeen qoys wadaag hoose gurad caligeli isaga lacagta lagu diri jiray baada iyo wax kasta madaxafishada aan diri jirin xoogaa lacaga ma jirin yani ilaa la gaaray dee meesha waxyaalaha xalayda ka sheekeynayo aniga isagoo hornimid oo anoo baada ogolaaba dee oo dee maogtahay waxaa liyihi biyo kaa badan iyo dad kaa badanba way ku harqiyaane markaad aragtid dadkii kula socday oo dee wixii ay caadi tahay kasa laakiin akhirkii waxaan ku guulaystay inaan diido inaan raashinkii ka daayo in qabiil lagu qaybsado si kastaba horta xisbigu saasuu ahaa markii hore markii ninkan iyo qoladiisu yimaadeenna waxaa la mamnuucay waxaa la yihahdaa gilli iyo xisbiye kale oo xitaa kuwa gacan kurimiska gobolka doolamaba gaari jirinba kuwa gacan kuris xitaa gobolada kale ma gaaraan jigjiga bay xafiisya booror ku qortaan xoogaa bajadaa lagu siiyaa hadday jiraan ayagoo oleysanayaan arki lahayn soo maha yaa arkay inteenan hadda meesha ku jirtaa waxaan filayaa dee deegaanka waad joogteen weli ma aragteen xisbi aan ahayn xisbiga dib u dhaca shacabka soomaalida etoobiya oo ololeysanaya weli ma aragteen iga jawaaba weli ma aragteen xisbigaana ololeysanaya keliya waxaan arki jirnay in tv-ga laga sheegay xisbiye kale magacyadood jigjigana aad laga yaaba inaad ku aragtid boor meel ku qoran xisbiga magaciisa ya waxaana xisbiyadaa la furaa ama ay shaqeeyaan sida marka walaalayaal waa ka adugtaa weli jigjiga iyo inaad idaacadaha ka maqashid maahane xisbiyo kaloo baa xisbi la oran jiray muxuu ahaa gol webina iyo Hirshabeelle iyo baa waxaa lagu sameeyaa jigjiga yani budgetka ku baxaya waxaa sameeya qolyahan kuwii ka horreeyna way sameyn jireen kuwii ka horreeyay kuwan waxay isku dhamaan kuwii ka horreeyay waxay ogolaayeen qofka asagoo madax bannaan inuu soo sharaxade waan xisbina ahayn laakiin kuwan waxay sameynayaan marka doorashadu soo dhowdahay baa loo yeerayaa qolyo calooshooda shaqaystayaala xisbiyo hore magacyadooda qaadanayaan waa xafiis bay furanayaan haddaad gashid deegaamada kale ama baadiyada aad fiirisid Ethiopia ka jira deegaan walba waxaa ka jira intaa wax oo xisbiga ka jira annaga laakiin maxaa noo qoran xisbiga dib u dhaca shacabka Soomaalida Ethiopia kaliya noogu jira fiiriya hadda Google gareeya xisbiyada Ethiopia ka jira annaga waxaa noogu jira xisbiga dib u dhaca shacabka Soomaalida Ethiopia sababta kuwan gacan ku rimiska oo lagu sameeyay jigjiga ma gaarsiisana federaalka oo dad ka register xitaa laga register xitaa moogta waxa la beenada sheegaysa been run oo sheeg please qaarta shirraasi codkeenu u gaara dad badan moogta muhiimadu waxa weeyaan in codkeenu dad badan gaaro oo uu yeesho yani dhagaha dad badan oo ku dhaco xitaa kuwa naga soo horjeeda inay maqlaan baan rabnaa laga yaabo inay inta aqbalaan waxaan u sheegayno ay saxmaan marka waxa dhacday walaal yana xitaa way keeni waayeen inay been xalii been sheego been run u sheeg xitaa wixii inay run u ekeysiyaan oo xisbiyada ka soo diiwaan galiyaan wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal oo wax maartay ku jira listiga xisbiyada Ethiopia ay noqdaan xitaa ma sameeyeen
ومركا دورشة بيل كده ما انتهي بالله أساسا قلير إن إسكتشوجا تيجوا وما ترجع هذا قبلها ساعة وضاق إحنا وارنا إسكا قرابة استمارتي رجعت عشرة إسكا فورو مارتي أنا حقي حالته إنه جاي كواس على سوق يا بجد بالغوسية فرتالي إذا علاه كهلا لوكال كا دان ساسا دورشة لو قرا مركا حسب كان حلو كحكم ده هذا أنت ما كان تلا لوريجين إن متراد دي شعبك halkaa lagu joojiyey waxaa lagu keenayaa nin dooran baa lagu dhahayaa dooro nin dooran ayaa lagu dhahayaa dooro Fathiya mahadsanid waa la soo dhawow nin dooran ayuun baa lagu dhihi doorade oo halkii qolyarka koonfur ay ka dhaheen yahoy xaad u tiraadeen nin dooran doorta yani xaqiiqda ka hor inta qoladani qowleysatada aysan la wareegin talada gobolka Doolo barigiisa badanka waxaa ka soo bixi jiray dad aan ku iman xisbiga ee si madax banaan ugu iman jiray aadiyad yani wadad fiiri xisbigoodu maanta hadda inta wacno ama qof iyaga u yeerno aan iraano bal programka xisbigiina noo sharax maaha wax qoran not written wax qoran maaha xisbigu wuxuu ka bilowdaa Cabdi Maxamed Cumar buu ku dhamaaday yani ma aragteen iyagoo inta baabuur iska buuxiyo lacagna interbeesada lacag juwaana kaga soo qaata tuulo imaanaya ka soo dhaaya haye maxaad u baahantiin sayidahayaan waxaan u baahanahay in ceel naloo qodo ama waxay dhahayaan sidii in masaajid naloo dhiso yani haddii nidaam jiray ama program uu jiray ama xitaa xukuumad ahaan mogtay xukuumad markay tahay every 5 year plan bal wax la sameeyaa qorshaha 5 sano ee soo socota halka uu taagan yahay wuxuu ku go'aaminayaa halka uu taagan yahay wuxuu ku go'aaminayaa wixii dadku ka codsadeen waxyaalaha dadka ma artay in saacadka looga dhigay oo dadka lagu qarabay kamid ah laakiin ismay weydiin wareede baahidan hadda la sheegay te hadday timide isla hadda waayada la dalbaye muwaan maaliyadan ama budgetkan dawladdu uusan program lahayn oo program ku socon ilaan wasaarad kasta waxay ku dalbataa miisaaniyada budget breakdown bay ku dalbataa iyadoo miisaaniyada la jabiyay oo la dhahayo intaas waxaan u qoondoonay wadooyinka intaa waxaan u qoondoonay caafimaadka intaa waxaan u qoondoonay mushaaraadka intaa waxaan u qoondoonay yani waa wax qoran marka Cabdi waa asaga tuuladu soo istaaga dhahayo waree hebel orod hadda la kale mashiinka ceelka qodayay orod wariya waxa la kaayada kii guriyaha dhisayay waa soo ku hayee xafiisyadani uu leeyahay waxa keena ma waysan program ku socon yani waxaan yani waa meeshaan ka tusayo sheekaduba inay laab la kac tahay wax meesha ku abuurmade wuxuba yani wax qorsha oo meel u yaala ma jiro qorshaha xisbigan dib u dhaca shacabka Soomaaliya Itoobiya waxa weeye waa waxa uu aqligiisa calooshiisa ka dareemay Cabdi Maxamed Cumar ma jiro wax qoran ama nidaam lagu socdo oo long term iyo short term leh halka uu taagan yahay buu go'aanka ku gaaraya okay tusaale enterprise-ka la shaqada waxaa laga yaabaa fiig ceel ku jiray waa asagoo soconaya baqolo waxay dhahaysaa ceel noqod oo wacaya ceel baa loo baahan tuulada laga qodo si degdeg ah in lagu qodaa wasiirku ma oran karo mana awoodo inuu yiraahdo madaxweyne haddii fiigagii shaqay ku maqan yihiin shaqada ka soo baxaan ceel ku jira laga soo saaraya mid cusub baa la bilaabaya yani qorshaha waxa inay sheegay horta xisbigana waxa weeye gabigiisa wuxuu ku saleysan yahay sheegaya wuxuu ku saleysan yahay qorshihii marqaankay qaadiradu lumisaay waligeed qallibantaay
fiiriya hadda ku celinaya qorshihii marqaankii qaadiradu lumisay weligeed qalibantay qaadka marka la cunayo ballamaal la sameeyaa waxbaa la qabanayaa waa lahaa subaxii markii inta qaadka la tufo la seexdo raggii ballanta lahaa ninba nin buu wuxuu lahayaa hebel ha kusoo wacay u kaadi hadday dhacday in mid kamid xitaa midka kale soo waco uu dhaho bahalkaa layaa wareedhe hawshii madax xala ku ballanay iyo subbal 3 saac gaadhe 4 saac gaadhe 5 saac bari gaadho barjihii baa la joogaaba dii marka fiiri waa qorshihii marqaanka xalaa marqaan lagu qorsheeyay ya qorshihii marqaanka xalaa marqaan lagu qorsheeyay ee qaadiradii barqadii lumisay weligeed qalibantay habeen kaste halkaas ka socdaa horta marka qorshaha xisbiga dib u dhaca shacabka Soomaalida Itoobiya qorshihiisu waa sidaas sida dhabtahay waa sidaas waa qorshe ku bilowda Cabdi Maxamed Cumar kuna dhamaada Cabdi Maxamed Cumar taageerayaasha dulmideed markaan magaciisa sida caadiga ugu dhawaaqaya hamoodinina inaan u jilcayo waxaan san xalay taba ka afeeftay waxa jeclahay inaan iska reebno magaca xumada iyo cayda haddii wax ka sheegana wax sheegana personal ayaan cid galin haykalka sare aan dhahno saasan hadda ugu magac bixinaya laakiinse ilay iyo calol weyn waxba noo tarimayso niimadu waxa weeye inaan tusno dadka shacabka qaladaadka jira sidoo kale aanan caytamin waa naga reebanta marka xisbiga dib u dhaca shacabka Soomaalida Itoobiya qorshihiisu waa maxay waan niri isla qaadanay qorshihiisu waa qorshihii marqaankii qaadiradu lumisay weligeed qalibantay wax qabadka marka xisbiga waxa weeyaan inuu joojiyay ingili la isku sharaxo inuu joojiyay in yani qofaan xisbiba ahayn uu soo baxo inuu dadkii dhacay qaaraan xisbiga aad maqlaysaan waa maxay waa nidaam dadka lagu dhaco qaaraan bileedka xisbiga aad maqashaan waa nidaam dadka lagu dhaco waxa qaaraan bileed bixin kara sida sharciga waxa qaaraan bileed bixin kara oo xisbiga qaaraan bileed siin kara xubnaha xukuumadda oo welibana positionska siyaasadda xitaa shaqaalaha hoosaadku qaaraan bileed ugu malaha ilaa shaqaalaha hoosaadku haddii xisbiga xitaa talada ka dhaco yani waxa qaaraan bileedka lagu leeyahay dadka haddii xisbiga looga guuleysto structure ka baxaya oo dad cusub la keenaya laakiin shaqaalaha hoosaadku kuma jiraan sida agaasimayaasha wixii agaasime ka hooseeya maaha xubno xisbi waxa xubno xisbiya wasiirada madax xafiisyadada xildhibaanada intaasaa lagu leeyahay qaaraan xisbi laakiin lacagta shacabka la idinka gurto qaaraan xisbi weeye maxaad ku bixisa bal isweydiiyo lacagtan wiil waa qaaraan xisbi oo bacmadooda laga qaato rasiid ka lahayn ya hadday lacag sax tahay ma rasiid lagu jaro ya waxa weeyaan maxaa lagaaga qaaday lacagta adigu xisbiga miyaad ka tirsanto ma xukuumaddaad ku jidhaa shacabka Soomaalida Itoobiya ha ogaadaan shacabka Soomaalida Itoobiya ha ogaadaan lacagta laga daldalo ee loogu sheegay qaaraan xisbi inuu tahay qaaraan bileedka xisbiga waa xaaraan maqdaca waa xitaa wax aakhira Ilaahay kugu cadaabayo waxa lagu cadaabay baan ku sheegi markaad dilaa lacag ku taageedid adiguna dilaabaad lacagta la idinka aruuriyo waa lacagta la idinku xiro waa lacagta la idinku dilo waa lacagta la idinku tacdiyo waa lacagta dumarkiina lagu caayo ha bixinina lacagta qaaraan bileedka xisbiga la yiraahdo oo sanduuq
ay ku dhacdo aan la aqoon oo aan ahayn cashuur maaha bal waxaa xaq lagu leeyahay qofka shacabka waxa xaq lagu leeyahay cashuurta inuu bixiyo laakiin qaaraan bileedkani wax xaq lagu leeyahay maaha ma garateen taasi waa taa horta lacagtan la idinka aruriyo shacabka Soomaalida Itoobiya joojiya waxaa lacagta lagu leeyahay oo bixin kara madax xafiiseed wasiir iyo xildhibaan qof shacaba ama qof shaqaale hoosaada laguma laha waxaan ogahay qof kasta oo shaqaala in laga jaro 6% bir in laga jaro oo liyada lacagta xisbiga waxaan ogahay in 6% yani 6 bir baa laga jarayaa qofka lacagtiisa 100 inta waa kiyo baa 6 bir laga jarayaa oo qaaraan bileed loo jaraa oo xisbigu leeyahay maxaa xisbiga muxuu ku siiyay adiga okay Cabdi Maxamed Umar horta wuxuu soo kordhiyay dadka in loo dhaco si dadban oo lagu dhaco qaaraan bileedka xisbiga enterprise-ka biyaha enterprise-ka jidadka enterprise-ka qaadka enterprise-ka enterprise-ka raashinka enterprise-ka yani sharaabka war adduunka qaadku hadda dalkan aan joogo ee Kenya qaadku uu ka baxaa sidaasay tahay Kenya maxay qaadku u aqoonsanta drug bay aqoonsanta bal isweydii dawlad drug ayadoo ka shaqeynaysa ya meeshii la rabay dhalinyarada in looga digo dragan oo taarif taxi wax la yiraahdo fiiri adduunka qaadka khamrida sigaarka waxa la saaraa wax la yiraahdo taarif taxi yani extra taxi waa la saaraa lama ogolaado in la xayeysiiyo jijiga wada aragtay marmanaya warar waaweyn buu leeyahay lagu xayeysiiyo qaadku iska daa marka in dawladda ay ka hortagto xayeysiintiisa ayada laftigeedaaba ka shaqeysata qaadkiyo enterprise inta u furatay bay shacabkii handana inta ku soo noqotay waxay tiri faa'iidadii qaadkaad cunteen ee draaga ahayn idinka dharjinay laga helay ayaanu dib idinku celinaynaa war markaad u amaanaysid qofka daraag oo tiraade daraagii baan waxaan lacag ka soo helay inuu cuno iyo inuu ka shaqeysay maxaa u diidaya ya inuu cuno kana shaqeysay maxaa u diidaya ila adaaba waxa yeesiyo waxa tiri qaadka faa'iidadii qaadka aan ka helay baan dadkii ku quudinaya baatiri enterprise ka qaad bal yaa arkay dawlad ka ganacsata dawlad drag ka ganacsata yaa arkay qoliyana Yurub jooga bal iga jawaabo khamrada dawladdu ma ka ganacsataa dawaa gaalada caadiga kookinta ya laqaadku kookinta ka culus Cabdi Maxamed Umar enterprise ka qaadka adiga iskale enterprise ka qaadka adiga lacagtiisa cuna enterprise ka qaadka adiga ku dhiirigeliya dadka in qaad laga wada shaqeeyo la cuna qaadka adiga ayaa ka shaqeeya ilmaha nagi iyo dhalinyartanadii la rabay qaadka inaad ka wacyi geliso masuulka uga ahayd inaad waxa xun dadka ka reebto oo qaadka aad saadid taarif taxi waxa tiraahdaa bal idinku labada orahood isu keen walaalayaal ilaa baan ku dhaashay waxa isu keentaan oramadu waa cadow Cabdi iyo xukuumadda xiliitinimo waxayna tiri oramadu waa cadow bayna tiri fiiriya hadda oramadu waa cadow bayna tiri okay every night night ma night ka dherba war every 1 hour
every 1 hour. imise ayaan ugu deeqnaa deegaanka Oromia hadaan nahay deegaanka Soomaalida Ethiopia? iga jawaaba please. imise ayaan halkii saacba jigjiga ugu deeqdaa Oromia oo lacagta qaadka ee Oromia lagu celiyo lacagta kaashka ee birta ee adag ee lagu celinayo Oromia waa imisa oo aan qaadka ugu celino abdi oo marka haday Oromia cadow tahay hadaba ku raacatada oo igu tiro Oromia waa cadow oo waa cadowgii Soomaalida hadaa tiri ya kibirlowga ogaadaya in adeer haye aan kugu raaco Oromia inay cadow tahay maxaa abdi maxaan qaadka u cunaayo lacagta ugu celinaa Oromo u siinaa macadowga lacag la siiyaa koob iyo 10 milyan weegi ka war koob iyo 10 milyan oo bir baan weegi Oromia ugu deeqdaa dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia DDSI koob iyo 10 milyan oo bir kulali soo dhow koob iyo 10 milyan oo bir ayay ugu deeqdaa haday cadow tahay walaal maxaa lacagta ugu deeqaysaa waxaad ugu deeqaysaa haday Oromia cadow tahay bal noo sheeg kibirlowga ogaadaya diinta islaamka soo bara walaal aaba waxaa la dhahaa aabaha oo qurax wax xaraam aaba inaad ku taaniyaan aabaha ahayn waa dhaqan xumada Cabdi Maxamed Cumar oo dhalinyaradeena baray walaalayaal bal fiiriya Ilaahay baad ku dhaarshay warnimaan aabaha ahayn si aaba u tiraahdaa diinta islaamka waa xaraam nimaan aabaha ahayn aaba inaad tiraadid kibirlowga wuxuu ku leeyahay aabo si aaba ii tiraahdaa ma aabaha baana si Cabdi Maxamed Cumar aaba u tiraahdaa ma aabaha ba war qofaan aabaha ahayn diinta islaamka ma banayn aaba in la waa xaraam dambi baa kuugu sugan inaad aaba tiraadid qofaan aabaha ahayn dhaqan xumada iyo diin darrada uu Cabdi Maxamed Cumar dadkeena baray weeye aabo in la yiraahdo war aaba yaaliya war aabaha un baad dhihi kadhaa nin kale ma oran kadid ma garac baata uno saad nimaan aabaha ahayn aaba u tiraahdaa waxaa ku celin walaala mar dambe kibirlowga waa dambi aad diinta islaamka gelaysid aabaha un baad dhihi kartaa ya wuxuuna baray Cabdi Maxamed Cumar wuxuuna badaa kasii daran walaalayaal ayax tag ee la reeb hadduu xitaa maanta inaga tago hadduu xitaa maanta inaga taga Cabdi عجيب إلى ولا غفر أباي أهير أروى أباي إنا لله وإنا إليه راجعون في روحان كالله يفيريا يا أي يحتاج إلى الرب حدو إنا قد تجا ما أنت عبدي يا وكم حنت دعسان وكتجا حن بناولي ليو لما تسرد على ساري كريم دقن حمدا إنه ضدك أبهود الأولاد يلا يرد إنه أب أنا جاي ده غفر أبهود ده أنا أب كلها والدين الإسلام بتوصل قطن طيب وعيب والله بالله تالله ونما أنا هو يدا قبينه أبها أهين سي أبك وقول نقض ولا لا وخلاداتك ودين الإسلام كان قري حونا بري وحونا بدا كسيدرا goormaan kuwan yar yarka hadda aaba ku haya maskaxdooda ka tirtiri doona taro aabaha aan aabahooda ahayn sheeganaya Cabdi horta dhibaatada ugu yeer u geystay deegaankeeni iyo shacabkeeni taasa kamid ah inuu yiri aabay dhahay aabe waa aragtida
xisbiga loo dabaaldegaya aragtidiisa ka mid taha la socda hadda waa dhaqan xumada iyo baaba-a iyo bahdilka iyo maaragtay diin la-aantu waa aragtida xisbiga. xisbiga maxaynu u bixinay xisbiga dib u dhaca shacabka soomaalida Itoobiya. xisbiga maxaynu niri weeyaan qorshihiisu xisbiga qorshihiisu waxaynu niri waxa weeye qorshihii marqaankay qaadiradu lumisaay weligeed qallibantay. qorshihii marqaankay qaadiradu lumisaay weligeed qallibantay weeyaan qorshihiisuna. magaciisuna waa xisbiga dib u dhaca shacabka soomaalida Itoobiya. wax aan dhaqamada xunxun ee uu keenay ee ay ka mid tahay in hooyooyinka iyo dumarka la caayo, ee ay ka mid tahay inta dhalinyarada TV-ga lasoo istaajiyay in la yihahdo waxaad tirahdaan xoolahan wasi jirnay oo fuuri jirnay, ee ay ka mid tahay nin inta oday lasoo qabto gabadhu adeerka u ahaa in la yidhaahdo waxaad tiraahdaa waa dayrina oo naga mid ma aha, oo ay ka mid tahay hooyo gurigeedii joogtay aabe inta loo tago qora dhafoorka laga saaro in la yidhaahdo inta laga duubo video la yidhahdo wiilkaaga na soocaya waxaad tiraahdaa weligay wax ima soo dirin. bal ilaahay baa idinku dhaarshay ka warrama in dhalinyaro ah waan umaleeyaa Maraykanka inuu ku nool yahay baa wax ka soo sheegay dhalinyaro ah baa wax ka soo sheegay intay ordeen ayay waxay sameeyeen aabihii iyo hooyadiisoo jigjiga degan oo aad arkaysid moogtay qofku markuu rafaadsan yahay wejigiisaa laga gartaa. waad arkaysaa waalid wiilkoodii dibadda jiro kana warqaba inay yihiin oo raashin loo geeyay baa waxaa la yihahdaa waxaad tirahdaan wiilkayagu nama soo biiro. balka war hooyo iyo aabbaa la gaarsiiyey heerkaa. walaalayaal dhaqan xumada halkaasi maraysa. okay barigii dhaweede asagu halkan noogu yimid waxaa ka horreeyay asaga inuu seedigi ilaan xukuumaddu sidaan sheegnayba mogta waa xil iyo xiditinimo iyo xigaalo. waa in markaad xukuumadda cabdi maxamed cumar aad rabtid inaad xil ka qabatid yah xaashiyaan soo akhristay iyo jaamacad baan kasoo baxay xaashaalil lagama rabo. waa inaad ama gabar odagu qaraaba leeyahay xoxoota ama islaamaha uu qabo walaashood ama gabaray dhaleen aad guursataa ama ayagu ay maaragtay waa inaad xaafadda meel un ka soo gashaa xidid iyo xigaalo. waa inaad xidid iyo xigaalo noqotaa. wuxuu sameeyey markii la yidhi ha loo diro wuxuu yidhi waftigan waxaan u dirayaa Maraykanka, dadkii Maraykanka la soo hadla. yuu diray marka qurxintaa waxbaa la qurxiyaa. wuxuu diray qadar madaxii calool ama khadar madax calooshaas sorry igara lahaada qadar dheere buu diray. yuu khadar dheere ku daray marka wuxuu ku daray dumaashidiis ahna madaxweyne ku-xigeenka deegaanka dumaashidii oo ah madaxweyne ku-xigeenka oo sanyara qabo ayuu ku daray. waa staafkiisa sanyare. how come in staff nin ah xaaskiisu madaxweyne ku-xigeen deegaanka noqoto? nin staff ah yuu isku daray seedigii iyo dumaashidiis fiiri. wuxuuna rabaa shacabka DDSI ee Maraykan jooga inay la soo hadlaa. waa seedigii iyo dumaashidii. asad waa arrintaa waa in la galaa ma inaad xabsataan rabtaa xili xididnimo ku biidid xukuumadda xili xididnimo
waxaa dhacday marka qatar wuxuu sameeyey waa isagii tegay maraykanka waa isagii codsaday odayaal bulshada DDSI ee ka hor yimid ee diiday dulmiga iyo tacadiga dadka lagu hayo inay la kulmaan odayaashii waa iyaga diiday waxaan dhageystay oo clipkaas inaan hadda hayaan u malaynaya nin odayga ii soo diray dad odayaala oo isku jifa yihiin oo odayaashii kale inta u tagay ku haya odayaasha kale waxay weydiiyeen wakaalaye idinku qabiil baa tihiine dowladda ma qabiil baa ka soo ergey keena ya adeer annagaan Minnesota joogin oo dariska Kenya joogna ayna qaadan dulmi meel ka soo jooga dulmi Jigjigu jooga dulmi Muqdisho jooga dulmi Djibouti buu jooga dulmi Puntland buu jooga dulmi Somaliland buu jooga dulmi Diid hamooyin meel halkaas kaliya wax jooga halgamaasar Cabdirashiid soo dhawow waxaa dhacday marka odayaashii waxay ku yiraahdeen odayaashii ka socday xukuumadda inay matalayaan iska dhigayay xukuumadda kama tirsaneen odayaalow ma idinkoo qabiilad xukuumadda ka turjumaysaan insha Allah waan isku dayayaa inaan codkaas soo bandhigo labada odayaal sheekada dhex madhay inaan soo bandhigo insha Allah waan isku dayayaa waa yaqyaqsi su'aalo adag bay odayaashii weydiiyeen odayaashii kale waxay dhaheen war qabiil miyaad erga ka tihiin oo ka soo erga keenteen mase xukuumaddii DDSI odayaashii ka socday Cabdi Maxamed Umar waxay dhaheen waxaanu ka soconaa madaxweynaha oo soo uga socotaan bali ma idinkoo qabiilaad ka socotaan mase idinkoo xukuumaddii matalaya mase odayaashiina qabiilka baa shacabkii DDSI oo dhan matalaya ya yani odayaashii waxay ku dhaheen Minnesota joogay nimankii kale walaalayaalow haddii aad Cabdi ka erga keenteen idinkoo qabiila tii waa fajiciso waa haddii Cabdi eed erga ka keenayso dee Cabdi annagu qabiil kuma tirinee waxaanu ku tirinaa inuu hogaamiye deegaan yahay oo nin qabiil soo erga tiran karaa maaha haddaad leedihiin deegaankii Soomaalida Ethiopia oo dhan baanu erga ka nalaga soo dirayna ya dadka aad sheegtay marka odayaashii waxay dhaheen anagu ma aqbali karna dee erga noocay tahay aanan garanay sidii baa waqti lagu kala kaco okay ergadii dowladda ka socotay xukuumadda ka socotayna waxay noqotay Khadar madaxii qalool oo ah Seydigi iyo gabadha madan waxay ku xigeenka waxba ka sheegi mayo waa qof dumar ah waa walaashay oo kale sharaf bay ga mudan tahay oo ah dumaashidi oo naadir ka qabo bal fiiriya ninkaas odayaashii wuxuu soo dirsaday odayaal jifaa kuwii xukuumadda mataliyana wuxuu soo diray dumaashidiis iyo Seydigi dumaashidiis iyo Seydigi maxay wadeen marka waxay wadeen lacag lacagta ay wadeen xagee laga keenay waxaa laga keenay yani hay'adihii dawliga ahaa enterprise-ka loo bedelay sida hay'adii jidadka ceelasha biyaha qoy jiro enterprise laga dhigay liiboliskan la hoosgeeyey enterprise-ka qaadka enterprise-ka limaadka lacagta horta halkaas laga soo qaaday waa dadka shacabka lacagtoodii waxaa la hayaa oo caddaynta la hayaa dhammaan dadkii shirkaa ka soo qayb galay shirkii ay ku qabteen Mareykanka qof kasta iyo $500 balsi
qof kasta ee kasoo qayb galay shirkii noocaas ahaa waxaa la siiyey $500. waxaa la musuqayaa waa lacagtii shacabka DDSI laga qaaday wey. waxa Maraykan dad jooga oo shaqaysta oo ilaahay chance fiican siiyey laaluushka loo siinaya. marka horta waxaad ogaataan kuwii habeen hore qabsaday shirku sheegii xisbiga qabsaday iyo kuwii horeyba nimanka kuwaas ay loo shireenba, waxaad ogaataan qof kasta oo ka qayb galay shirarka ay qaban qaabiyaan lacag baa la siiyaa, iskama tago. ya shir bay qabsadeen haddaad maqashaan oo dad baa u tegay haddaad maqashaan, dadkaasi waxay soo qaateen lacag. kolla shirkii hore ee uu qatar iyo qabteen gabadha madaxweyne ku-xigeenka ahayd $500 baa la qaadanay. laakiin shirka habeen hore shirka hadda loo balansan yahay iyo miyaa in la qabtay ma kala cadeyn karo. asaga bal reedka la bixin doona waa naloo soo sheegi doonaa. qofkii inta la siin doono asna waan ogaan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. waa dawlad ku shaqeynaysa kaash iyo laaluush. xarawaanigi idiin sharaxayay gobolka Doola ninka iyo bariga Doola ninka lagu baabi'iyey ee wax kasta laaluush ka loo siiyey Guuled Cali Gari. tabta ay Guuled Cali Gari laaluushka ugu soo dabayaan bay dadkii Maraykanka joogeen waxay rabaan inay lacag ku soo dabaan. marka qof kasta oo shirkooda ka qayb gala ama kii qabsan doona hadda oo xisbiga u balansan yahay noqoto ama kii ka horeeya ay Qatar iyo gabadhu qabteen ha noqotee $500 ayaa lagu bixinayay. gardaro garanicho in adeerow way fiicnaan lahayd inaan ka dayno magac dhowga qabiilka. kuwaan wax ka sheegaynana qabiil maaha, kuwaan wax u sheegaynana qabiil maaha. waxay ogaadeen wax uga sheegi mayno. dadka shacabka ay wax u sheeganayna ogaadeen maaha. annagan kula hadlaynana ogaadeen mani. laakiin ogaadeen waxaan u naqaanaa dad sharaf leh, wanaagsan, dulmigana aan jeclayn. markasta oo qabiil la sheego waxaad ogaataan waa lagu qaybsamaa. marka walaalow adigoo mahadsan, waan taageersanahay ogaadeen, waan taageersanahay ogaadeenya. laakiin yaan dood khaldan oo kale naga soo dhexgelin meesha. adoo mahadsan please. cabdi ogaadeen maaha, qadar ogaadeen maaha, xukuumadda oo dhan ogaadeen maaha. walaalow ma inaga daysi waxba inaad gelgelin baa fiican. oo jamaad ba xaggaa joogto iyo jamaad ba xaggaa joogto aynaan orane aynu ka hadalno qowleysatada dhibta hadda inagu haysa. waxaan hadda ka cabanayno ma aha wax ay jamhad kale inoo geysatay ama jamhad aan ku cogleynay. waxaan ka hadlaynaa fahan mawduuca bliis. mawduuca ka leexan. mawduucaan ka hadlaynaa waa jigjiga iyo qowleysatada joogta. jigjiga iyo qowleysatada joogta marka qabiil uga hadli mayna. waxaan uga hadlaynaa shakhsiyaad daalimiin ah. sidaa marka si ka bedelan ha ka dhiganin iga daa walaalow. aada iyo aad waan ogahay fifa ogaadeen, ha noolaada ogaadeen. waa dadkaygii, waa dad yani waa walaalahay, isku deegaan baan nahay, xid iyo xigaalaan nahay, aftirsi baan wadaagnaa, magac Soomaali baan wadaagnaa. ma garatay? marka weli wixii baad wadaa ka soco. yani waxaan umalaynayaa waa qolyihii qaabu dooda nooga khalduu rabaa waan umalaynaya walaalkay. laakiin dhib ma laha
wada hawshaada saaxib. walaalayaal marka horta xisbiga loo dabaaldegayaa kuwa u dabaaldegayaa oo jigjiga joogaan lacag bay ugu dabaaldegaan oo kukumbir baa la siiyaa. kuwa Mareykan jooga u dabaaldegayana $500 baa la siiyaa. lacagta lagu ciyaaraya ee noocaasina waa lacagtii shacabkeena laga gurtay. ma garatay wax loo dabaaldego iyo wax la soo dhaweeyo ma aha. xisbi aragtidiisu tahay ya laalush, xisbi aragtidiisu tahay qabyaalad, xisbi aragtidiisu tahay ayada dumarka, xisbi aragtidiisu tahay ayada salaadiinta, xisbi aragtidiisu tahay ragga inuu khaniisiin ku tilmaamo, xisbi aragtidiisu tahay nin dhan oo weyn oo galya gafurleeta meel soo fariisin oo dhaho hebel anaa ilmihiisa dhalay. war bari xagee ku noolaanaysaa ninka inta TV la soo fariisay ku haye anaa hebel ilmaha u dhalayo. ya maxaad bari ku hadlaysaa ilaa Cabdi Maxamed Cumar weligii wadanka haysan maye. warkan dadka hooyooyinkood caayo adigu bari maxaad ku hadlaysaa? warkan soo dirayo oo TV-ga haysto adiguna bari maxaad ku hadlaysaa? Cabdi Maxamed Cumar laftigaagu, Cabdi Maxamed Cumar waa adiga gabdhihii caayay, waa adiga salaadiintii caayay, waa adiga kuwa laayay, waa adiga kuwa xiray, waa adiga kuwa hantidooda dhacay, waa adiga kuwa hadda dhici doona. bal bari baa xilka lagaa qaadiye oo gabal dhacayaa tahay. ya sida Daa'uud iyo Cabdullaahi Lugbuur ay maanta shacabka u yihiin soo shacab noqon maysid. ma ilowday madaxweyne deegaanka soo maray inuu bajaaj ku watay jigjiga. intiyada ragga soo maray nin kamid ah inuu bajaaj la ka yahay jigjiga. ma ilowday taa inaad bari adoo shacaba deegaanka iyo shacabka dhex joogi doontid. waxaanoo dekanaa maxay isu gelinaysaa? ilaahayna waa nooga kaare, annana waanu kaa aarsan. caqligaaguna waa caqliga aada Minnesota inta ergada ugu dirsatay aada dumaashidaa iyo seedigaa ugu dirsatay. waa caqliga markaad hadda halkan Kenya noogu timid uu seedigaa ku garab taagnaa. ya caqligaagu waa caqliga muqaadaraadkii iyo qaadkii la rabay inaad kala dagaalantid bulshada iyo dhalinyarada aad inta enterprise-ka ugu samaysatay aad misana dadkii yani inta kusoo noqoto advertising ugu sameynaysid oo aad u leedahay faa'iidadii qaadka aan ka helay baan idinku deeqayaa. yani waxaad leedahay asagoo hadduu ninka la yiraahdo Cabdullaahi Ethiopia yiri 3 bir lagu daawado asaga 1 bir baa lagu daawan doonaa. aad iyo aad alxaqiiqa waxaa la yiri xilligii madaxweynayaasha kili kor ragga soo maray bari madaxweynaha xiran ma ninkii ka dambeeyay wuxuu ku yiri war hebelow inaad rojeelku waa bilaa biyo waana bilaa koronto iyo biyo soo gali inoo soo gali biyo maxay tahay inoo soo gali aniga maxaa meesha aniga soo jeemiyaan deganaasiyo war inoo soo gali. ilaahay wuxuu qadaray kii oo aan ka bixin ninkii uu hadalka u sheegay uu soo galay jeelkii bilaa biyo bilaa koronto. ya jeelkii bilaa biyo bilaa koronto uu soo galay inay labadoodii weysa qaadanayeen intii sii baadee biyo yar ku waxaysan sii hadaad maalinkii dardaarankayga qaadan lahayd maanta biyo badan baan heli lahaa. haatan abdiyow haddaad tiri Cabdullaahi Ethiopia ha lagu daawado 3 riyaal adiga 1 riyaal baa lagu daawan doonaa insha Allah. 1 riyaal baa lagu daawan doonaa. waliba Cabdullaahi wuxuu ku xiran yahay jeel deegaanka ay believe suway meel ka sokaysa iyo alanbaqa in adiga lagu xiran sabtay dambiyada aad gashay waa dambiyo heer dal ama heer deegaan kaliya. heer dal iyo heer deegaan baad gashay. marka waxa weeyaan horta xisbigu
waxaan kusoo koobayaa hadalkiisa waa xisbiga qorshihiisuna yahay qorshihii marqaankay qaaduradu lumisaa weligeed qallimantahay waxqabadkiisana waa idiin soo sheegay oo intaas ka badan dee sharaxaad inagama baahna. maxay tahay marka inaynu yeelno dulmidiid waxay tahay inaynu yeelno inaanu dadkeena wacyigelinta halkaa kaga wadno. nin dulmidiida oo live soo gala habeenna yuusa ka baaqan. wacyigelinta aan halkaa ka wadno, xogaha abniintika aan halkaa ka wadno. taageeradeena guduhu aad bay u badan tahay, mar dhowna furka way xooraysaa haddii ilaahay yiraahdo. reeriyada mar dhow waan iska rogeynaa haddii aan nasri kala iman oo prime ministerkii inta lasoo magacaabo aan ninkan degdegna loo qaban meeshaan looga qaadin, yani waan qarxaynaa insha allah. taageerayaasha guduhu waxay sugayaan oo keli ah inta prime ministerka lagaga dhawaaqayo. haddii prime ministerku uu sidaa ku maaragtay ku daaho, waxay diyaar u yihiin inay dhaqaaqaan oo sida oromada oo kale ay sameeyaan. sidaa laaligeed yaynaan ka caajisin wacyigelinta shacabkeena. aan u sheegno dhaqaalahooda meesha la mariyo, aan u sheegno dhaqaalahooda dadka dhacay idda yihiin, aan u sheegno hantida dhaqaalahoodii laga samaystay meeshay ku jidho oo ah yani dhaqaalaha looga qaado qaaraanbileedka xisbiga. dhaqaalaha looga qaado waa baadil, waana weliba wax lagu cadaamudanayo. dhaqaalaha laga qaado walaalkaa baa lagu dilayaa. dhaqaalaha enterprise-yada raashinka oo enterprise-ka hadda raashinka oo kale kiis kasta oo deegaanka galaya 2 riyaal baa u saaran. wal ku dhufta maalintii intee kiis baa deegaanka galaysa. dhaqaalaha enterprise-ka qaadka kali enterprise oo qaadka dhaqaalaha sharaabka oo yani coke iyo biyaha yarkaaye nus litrkaaye jijiga laga cabayo ama deegaanka laga cabayo, dhammaan enterprise-ka biyaha ayaa sharaabka ayaa lacag u saaranta. wax deegaanka yaala oo aan wax u saarayn ma jirto. halgan dulmidiyaas insha allah. sidaa daraadeed horta dhaqaalihiini kambaniyadaas ku jiraa oo dabaqabashay leeyihiin oo berri haddii nidaamku isbedelo dee kambaniyadaas waa la yaqaanaayo, hantidooda waa la fariis garaynayaa. hadda marka dhaqaalaha aad joojin kadhaan hadda ka hortegi kadhaan waxaa ka mid ah qaaraanbileedka xisbiga. totally shacabka DDS waxaan kula dardaarmayaa iyo weliba gaar ahaan shacabka gobolkan ka yimid doolo, qaaraanbileedka tuulooyinka lacagaha laga soo aruuriyo hala joojiyo. ma tihidin idinku xubno xisbi. shacabku maaha xubno xisbi, waxaa xubno xisbiya wasiirada, xildhibaanada iyo madax xafiisyada degmooyinka. shaqaale hoosaadku maaha xubno xisbi, maaha. lacagtaas waa lacagta keliya hadda looga hortegi karo in lagu sameeyo dhaqaale burburka looga bilaabo. lacagta tirada badan ee qaaraan bileedka xisbiga lagu bixiyo joojiya. waxaad kaloo joojisaan ayadana isticmaalka qaadka. lacagta ugu badan ee uu idinku leeyanaya waa lacagtuu shirkadda kaali ka helo ee qaadka. ya lacagta ugu badan war xitaa haddaad cunaysaan qaadka laba nin intii nin cuni jiray 2 nin ha cunto. intii nin cuni jiray 2 nin ha cunto si halkaas ay wax uga baaqo. at least aan wax ka jarno ninkan, aan wax ka jarno. hal la curyaamiyo shirkadaha dhammaan enterprise-yada jiro oo dhan hal la curyaamiyo. yaan wax laga gadan, xitaa laysimada yaan laga qaadan, subcontractada ay bixiyaan yaan laga qaadan. walaalayaal Oromia
waxyaalaha guusha ku gaadhay waxaa ka mid ah waxay ka bilowday halganka curyaaminta ilihii dhaqaalaha ee xubnihii ay ku tirinayeen TPLF-ta curyaaminta ilihii dhaqaalaha ee xubnihii ay ku tirinayeen TPLF-ta idinkana waxaan idin kula dardaarmayaa shacabka DDSI in aad ka bilowdaan curyaaminta dhaqaalaha enterprise-ka biyaha kan raashinka kan qaadka tusaale si loo curyaamiyo waxaad u curyaaminaysaan war haddaad isticmaali jirtay biyaha nadiifta jooji kuwaaga ceelka karkarso oo cab war haddaad kook isticmaali jirtay iska daa shaah u bedelo oo qaadka shaah ku qon war haddii reerkaagu isticmaali jiray bishii konton kg oo bariisa ya isku day inaad kusoo koobtid 25 kilo ya war haddaad maalintii cuni jirtay kiilo qaada ama rubuc qaada waxaad cuntaa fallar qaada wax ka yar haddaadan kula daynayn yani wax kasta waxaa laga dhimo waxaa dhimaya dhaqaalihii halkaasaad ku curyaamin ka dhaan ya waxaad ku curyaamin ka dhaan idinkoo dhammaan enterprise-yada uu leeyahay ka jara dhaqaalaha oo uga jara waxa ay hayaan ee daruuriga ah inaad ka qaataan laakiin wixii wax ka hooseeya aad qaataan laakiin kuwa aad tooska u joojinaysaan waxa weeye shirkadda enterprise-ka sharaabka dhammaan wax sharaab ayaan laga gadan kookadan ayaan la gadan soodho oo dhan ayaan la gadan biyaha highlandigan ayaan la gadan biyihiina dhulka ka soo baxay karkarsada intaad yani u faa'iideyn lahaydeen cabdi maxamed cumar halkaa ku dhibaateeya waxaad ku dhibaateysaan qaadka waxaad ku dhibaateysaan raashinka saasaad uga adkaan ka dhan ilaaha dhaqaalaha ninka laga curyaamin waxaad ku dhibaateysaan qaaraanbileedka xisbiga totally hala joojiyo qaaraanbileedka xisbiga cid idiin soo xiraysa ama xabsi ku geynaysa qaaraanbileed xisbi ma jiro iyo maxkamad inta lagu geeyo la dhihi karo qaaraanbileedka xisbigu diida waxa ugu badan ay kugu dhahaan waa inay dana yar aad ka lahayd ay kugu adkeeyaan dhammaan shacabka DDSI gaar ahaan doolo bari joojiya lacagta aada u jartaan xisbigu lacagta loo jaro ee aan rasiidka lahayn waa lacagta laydinku curyaamiyo laydinku laayo laydinku xiro laydinku dilo sidaa daraaddeed dhaqaala burburka aad ku sameynaysaan cabdi maxamed waa inay u horeysaa in la joojiyo qaaraanbileedka xisbiga haddaadan shaqaale ahayn maxaa kugu khasbaya inaad qaaraanbileed bixisid ha bixin war biyaha ha ka gadanina kuwiina karsada war soodhada ha ka gadanina haddaad soodha u baahatid shaah karso walow shaah xitaa sokorta ku jiro shaah qaraar karso sokorta ku yare si aadan sokor badan u gadan sidaasaan iskula dardaarmayaa insha allah guul baan idiin rajeynayaa xisbiga dib u dhaca shacabka soomaalida Ethiopia weyaan xisbiga magaciisu xukuumadana waa xukuumadda xil iyo xidhiidhnimo ama saxigaalo sidaa dulmidiid group dhammaan hadda kadib ugu dhawaaqa markaad xukuumadda rabtaan inaad sheegtaan xukuumadda xil iyo xidhiidhnimo xisbigu waa xisbiga dib u dhaca shacabka soomaalida Ethiopia qorshaha xisbigu waa qorshihii marqaankee qaadirada lumisay waa bilaa qorshe waad aragteen ma budget ilaahay baa ku dhaashay hadda goor waxaa dhacday cabdi maxamed cumar tuulooyin ka mida maraya ba waxay dhaheen masaajid noo dhis ilaahay baan kugu dhaashay masaajidkii ilaahay ee dadkaa ka cabsay caqluma ma masaajidkii ilaahay ee lagu cibaadeysanayay ya ayaa waxaa lagu dhisi karaa budget dowladeed masaajidkii waa la dhisay tuulada magaceeda waa iga maqane hadda xitaa inta sheegaan dhihi lahaa ummadda tuuladaas degan masaajidkaas xoolaha lagu dhisay xalaal maaha sababta lacagta cabdi maxamed cumar iyo nimanka la geesaha ka fadhiya ay hayaan xalaal maaha masaajidna laguma dhisi karo tuuladii masaajid buu u dhisay isla ayaantiiba
wadaadada tuulood jooga ismay weydiin lacagtan masaajidka lagu dhisay xagee ka timid lan mogta masaajid waxa la gelinayo waa in la ogaadaa meesha ka yimaadeen ya marka yani qorshe la-aantay ka mid tahay qorshe la-aanta haddana laaga dhigay qiimaha lagugu yeelo lagu yiri wax allaale waxaad haddana weysaa haddaan ka jawaabayna war isweydii ceel baa tiraha laga qodo ceelku hadduusan qorshaha dawladda ku jirin si ayacnaa lagugu qodi karaa yani waxaa halkaa ka cad inaan wax qorshaha aysan lahayn dawladdu wax xukuumadda u diyaarsan inaysan jirin dhammaan xukuumaddu waxaa madaxweyne ka ah cabdimaxamed cumar waxaa wasiirka cabdimaxamed cumar waxaa madax xafiisyad maaliyaedka cabdimaxamed cumar waxaa taliya ciidanka cabdimaxamed cumar dhammaan asaga ahna wey xitaa kuwan maaragtay daalimiinta ay ku wareegsan oo xididka la ah iyo xigaalada wax uusan ogeyn ma samayn karaa 10 bir ma bixin kara xafiiska haddaan cabdi ogeyn. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sidaasaa inoo ballana dhaqaalaha ha laga curyaamiyo kookada yaan la gadan biyaha ilandiga yaan la gadan qaaraanbileedka xisbiga ha la joojiyo taa markii la yeelo waa dhaqaale burbur xun baa ku imanaya lacagtan uu idinku laynayo iyo lacagtan uu ku damaashaadayo way istaagaysaa. cabdi maxamed cumarna waxaan leeyahay hadda cabdi anugu caqligaaga adiga kuwa kugu meersan iyo aqoontaada xalay baan soo afjaray oo waxaan ku soo afjaray inaad tahay ninkii guuleedkii dhabarka ka qaniinay weli laaluushka la daba taagan aragtida xisbigaaguna waa noocaas iyo la taliyaashaada wax kugula taliyaan. cabdi caqligaagu waa caqliga aad inta tiri ergaan maraykan u diraya xukuumadda aad dumaashida wiilkaas wiilka staff ku ah uu qabo madaxweyne aad ka dhigtay aad maraykan ugu diray waa qadar dheere caqligaad oo seedigaaya aad teedada iga ergagee caqligaagu waa caqliga adoo khadar dheere oo seedigaaya iyo gabadha madaxweynekaa dumaashidaya geesaha kaa fadhiyaan aad dadka ugu leedahay qabyaalada hala iska daayo waryaa kaa qabyaalad badan adaaba geesaha qabyaaladii fadhidaay gurigaagabay kasoo baxdaa qabyaaladu waayo idad qabyaalada ku sheegaysid waayo ya waayo marka qabyaalada ciddad ku sheegaysid waayo markaasa adiga u dhaqmaysid. caqligaagu waa caqliga aada gabadhii in adeerkaa qabo aada madaxweyne uga dhigtay caqligaagu waa caqliga aada in adeerkaa taliyaha ciidanka liyu booliska uga dhigtay oo aan dhicin caqligaagu waa caqliga aada in adeerkaa uga dhigtay taliyaha nabad sugidta deegaanka. walaalayaal halkaasaan kusoo gabagabeynayaa waa idin salaamayaa insha allah halkaasaan ka wadeynaa dulmadiid ha guuleysto khayr baan idin rajeynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullah.